كردارين هاي وكلهم كصابصن مملكة جنتا سida أكون مش كمان ولا جل تقال مصنص وحاول قال هم في السارين لما الموت وخروي هاي من وناج كان الله يتحدى بقالكم مصنص ما تعرفوا حسقوني وحاولنا نقاء هذا الله من وناج وقيب كم ذا وياه من جزنيت فكان كل كين الماضي عشق وبحمد الله قاسنا من وناج هنقول قبصن دونا وأفهم دونا حبي من جاتني إيش دويش وحيكور بحين دونا حيل كون حياة يجي وزارة دول جابس كتيرة قبلها تالنس الله كل مان حيبها كدمان هيك بيقول بحين دونا دول كهورا أنا قبل زيادة نسوي شيء نسيبني يمكن لكن إذا كهور بحين نسوي شيء نيا عشان كنت ضمن وقت يقولون ويا مسؤولين تقرن كو أو لا قرن له وحنا كشوا دوينا يا ما يركض دقمنا كلي wax dad lagu waaniyo waxa ugu wanaagsan wax qayb jiro oo ah wanaag iyo toosin in lagu toosiyo wanaaga oo lagu tilmaamo wanaag wax wanaagsan oo jiro diintana noo sheegaysa in wixii khayr la saro waxaan filayaa inaad maskaxda aad tuujisaan maanta oo hawshan runtii waa markii ugu horeysay gobolka ka dhacda malaynayaa waa chance la sugayay runtii gobolada oo dhan way hay'adani waxay u dhisan tahay baa ah maamul toosin hadduu maamulku toosin yahay wala wada toosin waxaan filayaa marka mas-uuliyiintii heer gobol iyo heer degmada waa loo dhayahay maanta halkan kulley hadal badan odhan maayo hadalkii aan odhan lahaa waa ka maskaxdiina ku jiray maanta la filayo inaad maskaxda tuujisaan oo maskaxdiina ka yimaado qaabka wax loo toosinayo iyo qaabka idinka laftiguna isku toosinaysaan haddaa wax idinka khaldan yahay marka fikir kaa khaldana ama kaa maqnaa mid maanta kula fadhiyaa uu soo jeediyo isagii oo toosan waxa laga yaabaa adiga laftigaagu inaad dib isku noqoto istoosiso adiga laftigaagu inaad saxdo oo tiraa wallaahi go-aankii maanta inuu khalad bo taladaas khalad bah qorshahaas khalad bo ood ku waafaqdo kii aad ku khilaafsaneyd talada toosan inaad ku waafaqdo oo aad dib isku noqoto halkii lagu khasbi lahaa aad iyo aadna waa mahadsantihiin waxaan filayaa maanta janis aan u mahadnaqaya hayda runti waxaan umalaynaya gobolada innagaa nagu bilaabaan umalaynayaa dee janis baynu u helnay waxaan rajeynayaa in halkaa uu ka soo baxo maxsuul dib u saxaa cid kastoo mas-uuliyad haysa runtii hay-addan waa hay-ad la kowsatay xukuumaddan maanta uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud axmed silaahi oo la sameeyey hay-adda anti-corruption and good governance waa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaag dal baynu nahay soo koraya dal baynu nahay dhismaaya saa darteed in aynu ka dagaalanno wixii musuqmaasuqa wixii isdabamarin ah musuqmaasuqu dadku waxay u yaqaaniin lacagtun baa musuqmaasuqa la kala qaataa loo yaqaanaa inta badan laakiin musuqmaasuqu maamulkuu galaa mas-uuliyadduu galaa wax wal oo ku saabsanba uu salku ku haya markaa sidii waxaasoo dhan aynu uga xidhin tiri lahayn ayaa hay-addan u taagan tahay waxaanay u taagan tahay sidii ay u ogaan lahayd meesha ay ka jirto maamul wanaag meesha hay-adda ay ka jirto maamul wanaag wasaaradda ay ka jirto maamul wanaag
عند الريبورت كبر حسين دب لوجو عليا حكومة السنة وهي أدنى صوب النكتة همتي وهي أد مسؤولية ده قدرين تدانا كله إنه يكون قرب الله أو كان سيننا هو يعني مركا دوب دويدين كايدين كاي ما نيسا سيدو ليبنو شادي وايو قفوري بتبشديس لما دولدو كوردينيتوريسك وزارتها u jooga cid ay wada shaqeynayaan mas'uuliyadda leeyihiin waa anig in badan baan nasa markii ugu dambeysay kormeer baan sameeyay subax xafiis kasto aan maray sawir baan ka qaaday qof miiran baa ku jibsana afar ayaan ugu imi iyagoo ay joogaan dadkooda sideediina waa hadda maamulkay ka mid tahay qofku mas'uuliyaddii loo faray maamul wanaagay ka mid tahay inuu ilaasho waqtigeeda iyo shaqadiisii waa maamul wanaagay ka mid tahay idima yeelin oo idima odhan maxaa saa u samaysan weli isuga maynan laakiin way isu maqan insha allah waxaan rajaynayaa in idinku malihii kuwa markaa madaxda yihiin malihii waa perfect malihii iyagaa wada hagaagsan way xumaanaya waayo haddaan anigu idin yeeli waayo aniga laftayda qayb baa khaladkaad ku yeelanaysa oo mas-uuliyiintu ku leeyihin markaa tabashadiina ama wasaaradihiina ha noqoto anigu waan fahamsana inta badan wasaaradaha gobolka ka dhisan waanaga kuwa aan ka dhisnayna waanaga haddii magac qof loo soo magacaabo oo aanu magacii shaqadiisii aanu haynin dee magacu qofku waxba tari maayo way jiraan wasaarado badan oo isuduwihii joogo laakiin aan xafiiskii lahayn oo aan adeegii fidin karin oo aan qaban karin oo badan baa dee jira way ku badan tahay gobolkan weliba gobolkan way ku badan tahay afar meelood oo qura ayaa dhisan marka wasaaradaha loo ego laba gobol baan soo maray gobolka togdheer oo kale xagga marka la doonayo laamaha wasaaradaha iyo xafiisyada isu duwayaasha ee ay ku leeyihiin farac ay togdheer ku leeyihiin boorama way ka maqan tahay waay ka dooda sheega nin walaba wasaaradaada ha uga gaban kuwa gudbinayaana waa kuwa waay waxay u maqantay adeegii ma fidin kartaan de haddaana meesha aad ku shaqaynaysa jirin haddii meesha aad ugu adeegi lahayd bulshada aadan haynin haddii qalabkii iyo wixii aad ku shaqayn lahayd aanu jirin haddaadan dhismihii aad marka horeba lagu soo ilan lahaa aanu jirin saaad u shaqaynaysa way ka maqan tahay halkan gobolkan way ka maqan tahay idinkaana laydinka doonaya inaad tilmaantaan ha qarsanina waxaad qarsataa wuu ku qarsadaa wasaaradda waa u faa'iidi inay ogaato waxaa la hayo